General Turyare oo xalay lagu weeraray isaga iyo ciidan uu la socday xaafadda Marinaayo ee degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir ayaa weerar ku ah isla goobtii xalay lagu dili rabay. xogo aan helnay ayaa waxa ay sheegayaan in generaalku uu wada hadal la yeeshay Saadaq John, General Koronto iyo sidoo kale saraakiisha beesha uu ka soo jeedo, waxaana lagu taliyay in jawaab cad laga bixiyo weerarkii xalay lagu qaaday. dad ku dhow generaalka ayaa inoo xaqiijiyay in Master Turyare uu ku jiro abaabul ciidan laguna wado in uu tago goobtii xalay lagu weeraray si uu u qaado tallaabo ciidan. wararka aan helnay ayaa sidoo kale sheegaya in ciidankiisu ay ku lamaanan yihiin ciidan gurmad ahaan uga yimid Saadaq John oo ay dawladdu raadsanayso. in Turyare uu weerar qaado waxaa sabab u ah in aan laga jawaabin baaqiisii xalay ee ahaa in degdeg looga warbixiyo sababta ay ku dhacday in la weeraro isla markaasna la isku dayaba in naftiisa la dhaafiyo, mana aysan dhicin in jawaab uu ka helo xagga dawladda. war hataa haddaan qofkii aamusan uusan fakanayn, qofkii aamusan oo khaladka soo dhacaya ka aamusan hadduusan fakanayn, de ma garanayo meesha loo socdo. wax kasta marka la yiri maxaad la aamusan tahay la yiri caawa ayaa la iga hadal siiyey. dadka iga hadal siiyey ma mahadin doonaan ilaahay idinkiis. ilaahay idinkii ma mahadin doonaan, umana qaadanaya waxa dhacay wax shil yar ah, wax ku talagala bay ahayd, isku day dil oo abaabulan bay ahayd sidaan aaminsanahay. kagaabsiga dawladda ee weerarkii xalay waxay ka dhigan tahay in la yasay jiritaanka Cabdiraxmaan Turyare oo soo noqday taliye nabad sugid oo saameyn leh iyo in weerarkiisu ay dawladdu wax ka ogeyd lana sii qorsheeyay. xilliga jidka loo galayay Turyare wuxuu ku wajahnaa guriga Xasan Sheekh Maxamuud ee Marinaayo, halkaas oo uu sidoo kale ku sugnaa sida wararku sheegayaan Senator Muuse Suudi Yalaxow. arrimo quseeya amniga ayay halkaasi uga shirayeen madaxda. dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo ma ahan dhaqankani mid ku cusub in la weeraro mas'uuliyiin waddanka xil ka soo qabtayna waa u caadi. horay waxaa weerar loogu qaaday Cabdiraxmaan Cabdishakuur, madaxweyne hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale madaxweynihii ugu dambeeyay ee Farmaajo xilka ku wareejiyay Masar Xasan Sheekh Maxamuud. waxaa kale oo la weeraray ra'iisul wasaarihii hore ee nabad iyo nolol Xasan Cali Khayre oo meel fagaara ah lagu rasaaseeyay. dadka amniga falanqeeya arrintan waxay u arkaan khatar weyn oo haddii aan xal degdeg ah loo helin sababi karta dagaal. in ciidan loo adeegsado mas'uuliyiin ka aragti duwan mas'uulka xilka haya ma jirto meel ay uga qoran tahay dastuurka dalka, taas ayaana xaaraantinimeynaysa in lagu kaco fal nuucan oo kale ah. weerarkii xalay ee Turyare waxaa si isku mid ah uga hadlay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo barahooda bulshada ku soo gudbiyay walaacooda la xiriira arrinkan iyo badqabka naftoodaba. haddaba haddii dawladdu aysan waxba ka ogeyn weerarkii xalay ee General Turyare isla markaasna aanayba ka soo jawaabin, yay tahay cidda mas'uuliyaddeeda leh? yuuse jawaab ka sugaya Cabdiraxmaankii xalay la weeraray? qaybta hoose ee commentiga aan ku sheekaysano.